ninkani waa ogaadeen wuxuu meesha u fadhiyaa marka adiga laga soo tago ee sida laga soo tago ee daarood kale laga soo tago ee hartiga kale laga soo tago ogaadeen oo jufadiisa hoosa buu wuxuu raalli ka noqday in hal habeen kurka laga gooyo oran hore u socodaniyo Puntland ma taagnaateen marka inaad arag Puntland cadawgeedana kuma ogin laascaanood xamsana danta aan kale ahayna waa ka qabsanaya Puntland waa dadkaygii waana garabkayga gabadhii tiri xaggay ku socdaana meel aanu ku soconno kale ma jirto anagu dawlad sax mar inta helayo hay bay maqlaysaa waxaan tiri danta aan le idin ku tiirsanahay Puntland baan ku tiirsanahay waa ku fahanay dhageyso anagu kale waa leenahay Puntland waa leenahay ka hay aan isdhageysano isdhageysigu waa muhiim isfahamkuna waa muhiim waxaan tiri dantaan leenahay waa idinka baxaya xamse waa doqon dalkiisii yimi intaasaan idin leeyahay maxaad u baxaysaa joog maxay ku caysanayaan maxaa ku caysanayaan ayaa soo dhaweey كهاي ما عشان ما عشان أنا مغرب باي سو قلي واسو تكنيا مسجد هبنات مغرب تكنيسا مسجد هبنات مغرب تكنيسا يوروبا joogta كهاي وين sognahay riwaayadaas aad noogu sheekeynaysa mise doodad ka cararaysa Xamse Cabdi Barre baan dantayda ka gaaraya danta uu Xamse Cabdi Barre leeyahay waxa weeye inuu ogol yahay in Xamse Cabdi Barre danta uu leeyahay waxa weeye qorya raashiyana qaata baskoolada Chinese qaata daroono Turkiya qaata hubkiisi ugu casrisanaa qaata weerara Jubaland kurka ka gooya waxaad ogaadeen u garataan iyo harti Kismaayo ku nool waxaad ogaadeen iyo harti Kismaayo ku nool u garataan kurka ka gooya Puntland cuna qabateeya caanaha ka sii daaya cilad ku abuura $50 milyan qaata siyaasadeeda waala waa danta uu leeyahay Xamsi waa danta recordkiisa ku jirta recordkiisa waxa weeye mataqaana waxa ku jira weeye danta aad adigu ka leedahay aad ka dhamaysanayso dantiisa hadaanay kugu shaqayn hadaana waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud doonayo aanad afaafka ku saxiixin waxa la yaala wuxuu Xamsi ku qaban karaa ma jiro hadduu Xamsi cid badbaadin karayo xildhibaanada Jubaland ee ku xaniban Muqdisho dhexdeeda ee habeenaya maalin airportka laga celinayo ee la dhibaataynayo ee la cuna qabataynayo shacabka la idaafaynayo ee ganacsiga la dhibaataynayo diyaaradaha la xanibayo buu hal habeen xakamayn la Xamse Cabdi Barre wuxuu u imanaya laascaanood waa wax la isla yaqaano wax la isla fahansan yahay taariikhdiisay ku xusan tahay adigu imise shaar baad xidhan tahay shaararkaagu fara badana berri marka daara waxay ku leedahay Puntland waa ku daraysanaya waxay ku leedahay federaalka waa ku daraysanaya waxay ku leedahay Xamse waa ku daraysanaya dhulba hadda marka shalay waxay lahaayeen isaaq waa ku daraysanayeen dadku macaaq baa marka dadka Soomaalida kala macaaq baa marka dhibaatada anigu waxaan ka yaabay imise dambaad aniga daabtirsiinada hayga saarine dhulbaante maabtisiinada ka saaraysan dadkiisa ku danaysan maayo de uu ku khasban yahay Puntland way ugu khasbantaana waa ku khasbana ina adeer afkaagan ka hayna Xamse Cabdi Barre dantaydan ka gaaraya soo afkaagan kama oran dantaydan ka gaaraya ha afkaaga soo kama oran de si kalsooni leh anagu waxaan daaro Ismaaciila anu meesha ii fadhiya anu ku yimi adigu hartibaad sharaftiisi miyaan dilaa anigu waan ku mudgarayn karaa haddaad aaminsan tahay qayli oo hadoodin oo xigmad guur samee ka yeeli maayo ninkani waa ogaadeen wuxuu meesha u fadhiyaa marka adiga laga soo tago ee sida laga soo tago ee daarood kale laga soo tago ee hartiga kale laga soo tago ogaadeen oo jufadiisa hoosa buu wuxuu raalli ka noqday in hal habeen kurka laga gooyo